madaxweynaha oo ay weheliyaan wasiirada gaashaandhigga amniga iyo taliyayaasha xoogga iyo nabad sugidda qaranka ayaa maanta kormeer ku tagay qaar ka mid a furimaha ciidamada militariga ee ku yaala gobolka Shabeellada Hoose iyo qaar ka mid a talisyada guutooyinka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha oo xiran dareyska ciidamada ayaa ku soo wareegay dhufaysyada iyo xeryaha qaar sidoo kalena fagaarooyin ku yaala deegaanada Muuri number 50 iyo laanta buura kula hadlay ciidamada iyo saraakiishooda isagoo kula dardaarmay inay laabaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada isla markaana ay mas'uuliyad muujiyaan. deegaanada Awdheegle iyo Mubaarak oo dhawaan ay ciidamada qaranku dagaal kula galeen Al-Shabaab ayaa madaxweynuhu waxa uu min hal darajo dalacsiiyay ciidamada iyo saraakiisha ururka labaad ee guutada shanaad kuwaasoo guul ka soo hooyay geesinimana ka muujiyay dagaalkaasi iyadoo ciidamadii ku geeriyoodayna la dalacsiiyay min 2 darajo. taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo la hadlay TV-ga qaranka ayaa ka hadlay waxa ay moraalka ciidanka ka bedeli karto booqashada madaxweynaha iyo dardaaranka uu jeediyay. booqashadaas oo salkeedu ahaa inuu kormeer ku sameeyo soona booqdo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan gobolkaas difaacana kana difaaca nimankaas ee mataqaana nabadiidka Al-Shabaab madaxweynuhu soo kormeeray guutooyin ka degan maxaan ku radaa Afgooye maxaan ku radaa Bariire laanta buur ilaa iyo Janaale inta ka dhaxlu soo kormeeray wuxuuna la hadlay ciidamada meesha degan isagoo u khudbeeyay unaga mahad celiyay sida ay diyaar ugu yihiin si naftooda ugu horaan siday u daafici lahaayeen qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo sharafta ninka muwaadinka Soomaaliyeed. marka madaxweynaha ujeedada ugu weyn oo maanta u yimid intaas ahayd wuxuu indhihiisa ku arkay ciidan diyaara oo heegan ah oo maxaan ku raad u diyaara inay difaacaan qarankooda iyo dalkooda iyo diintoodaba. marxaladaha xusida mudan waxaa ka mid ah madaxweynuhu markuu arkay raggaasi say diyaar u yihiin inuu badankooda maxaan ku raad urur dhan u dalacsiiyey ururka labaad ee guutada shanaad waxaa lagu dalacsiiyey ururka sidaad ogtihiin ciidanka hal mar lama wada dalacsiiyey qayb ka mid ah la dalacsiiyaa laakiin waxaa loo dalacsiiyey urur dhan loo dalacsiiyey sida ay u guteen waajibaadkooda ay u guteen sida ay diyaar ugu yihiin sida ay u difaaceen cadowga mataqaanaa isku dayay dhowr jeer gobolka Shabeellada Hoose inuu nabadeeda khalkhal-geliyo. marka madaxweynuhu raalli buu uga noqday wuxuu dareemay sida ay diyaar u yihiin mahad celin buuna u mahad celiyey buuna ugu dalacsiiyey kuna abaalmariyey maxaan ku raraa qiimayntaas ay keensadeen. ururkaasi inta nool min hal darajo ayaa la dalacsiiyay kuwa dhintayna min 2 darajo dad badan baa laga yaabaa inaan ogeyn kuwa dhintay faa'iido ay u leedahay dalacsiintaasi bal sharaxaad nooga bixinay. dadka Soomaalida ahi waxa dhici karta rag badan oo ragga dhintay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waligiis ma iloobin waligiin waxa marta raadiyaashana ka maqashaan xerada xalana ma is weydiiseen xalana wuxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed askarigii ugu horeeyay u dhintay qarankiisa tagu jaalunu ku dhintay 1964 ilaa maanta aragteen nin kastoo Soomaaliya saas u dhaxlaa sharaftaas bay leedahay qofkii u dhintay qarankiisa. booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda ee furimaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada xoogga dalka ee ku jira furimaha gobolkan ay guulo wax ku oola ka soo hooyeen dagaalo ay kula galeen argagixisada Al-Shabaab deegaanka Mubaarak iyo Awdheegle ee isla gobolkan. Bashiir Khaliif Gaani SNTV Shabeellaha Hoose.